waxaynu maanta ka hadlaynaa waa maxay caqabadaha dhalinyarada haysto. caqabadaha kulligeed qofba way aragnimo iyo wuxuu la soo kulmaa noqoto ama wuxuu dadyo kale ku soo arko dhalinyaro kale asxaabtiisa noqoto ama waxyaalo uu asaga maqlay oo sheekooyin ay noqoto. caqabaduhu sidii way hore dhalinyarada ma ahan casriga la joogo. haddii 10 qarni dib loo celiyo ama 10 sano dib loo celiyo dhalinyarada waagaas nooleed iyo kuwa maanta nool kala siba caqabada u soo maraan kala sina ula tacaalaan wixii u xalliyaan. haddaba maanta waxaan isla eegaynaa caqabadahaasi anagoo fikradayna isku darsanayno oon anaga u haleerin inaan way aragnahay ama dad rugcada oo waxyaalo badan soo mar anaga oranaynin waa fikradayna isku dareynaa anagoo cabirayno caqabadahaasi jiro iyo waxaas wixii ay yihiin qaabka loo xallin karo. caqabadaha inuu muuqdo maxay tahay aniga ahaan haddii aan iska bilaabo horta dhalinyarada casrigan hadda la joogo waa casrigii waxaa lahaa yani ugu dulqaadka yar qofka dhalinyaradu. taasina marka waxay imaanaysaa ama waa sabab dhalatay sababtaasna waxay noqonaysaa waxyaalo aad u tiro badan in qofku uu dulqaad yani yeelan waayo waxyaalo badan oo sababa. waxyaalahaasna waxay noqon karaa in casrigan inuu joogno teknolojiyada bay'ada aan ku nool nahay dhaqankeena halka ay gaarsiisantahay aqoonteena iyo xikmadeena. laanna waxaa la yidhaahdaa qofka dhalinyaradu yani intuu geed ka booda ayuu talo ka boodaa. mahma kaletana way jirtaa oranayso 20 jir iyo adina lagdamayo marka macquul ma ahan qof 20 jir inuu si fudud aqoon badan ku yeesho inuu si fudud lacag ku sameeyo inuu si fudud nolol qurux badan ku noolaayo wax macquul ma aha. marka caqabadaas ay yar muuqata aan isdhihi karo waxa soo baa casrigan hadda aynu joogno waan rabno inaan waxyaalo badan si fudud ku helno anagoo nolosheena yani dadyo kale ka shaqeyn ka tusaale qaadanayno ama dadyo kale ku daynayno dadaan isku level ahaan oo yani nagada weyn naga aqoon dheer ayaan oo xawalo ii jiraadeen ama noloshooda ma sawiranaynaa markaas iska dhex arkayna waxa inaan qaban karno anagoo u baahan waqti anagoo cilmi iyo aqoon iyo xikmad u baahan yani waqaab yani in anagu wax badan qaban karno muddo kooban. ajnabi oo cadaan oo dhalinyaro ah ka fursad badan waalidiintooda laga yaabaa waalidiintada ka sii fursad badnaayeen waqtigooda iyo kooda wadankooda iyo jaanisiyada ay ka fursad badan yihiin laga yaabo wax loo dhaafay dhaanti iyo dhaxal iyo jaanisiyo loo dhaafay inuu ku soo faano khad soo geliyo marka dhalinyarada Afrika joogay oo sawirta isagana sidee meelaha ka tusaale qaato nolosha waa sameyn karaa isagoo jaanisiyada fursad hay marka taa waxaa la isla fahmay dabcan waxa laga yaabaa dhalinyaro hadda laga yaabaa in waddanka isla joogteen idinkoo yar ama dabcan 20 mihin ee dibadda aadan oo 4 sano 5 sano saa Soomaalidu u naqaan waxa waaye waa soo xamaalna lagu dhahaa taraaga laga yaabo inuu soo fuulo hanti badan uu soo tabco waxa waaye ma tabci kartaa hantida adoo adiga Afrika joogtid 5 sano ku soo korlaabto hantidu halka ka tabcay oo inta la imaado oo adiga istiraahdo sidee ku dhacday qofkan hantidu uu tabcay adigana ma tabcin oo taas marka qaar kood laga yaabo inay tahay fursado asaga helaayo oo hantidan ku tabcay inaadan adiga heli karin. taas waxay noqon kartaa oo kale waxa la dhihi karaa oo kale qofka hadaf been agalaya صح sababtoo ah meesha uu joogo kuma aamin qabaay صح waxay noqonaysaa inuu meeshan niyad ahaan uu ka haajiro oo dhaho meesha waxa ma lahayn ma qabsan heer baasaas soo sameeyay Mareykanka ama qurbaha tagay marka qofkii wixii la gudboona marka ay ahaa inuu Nairobi joogo ama Kenya ama Afrika uu joogay uu laga yaabo inuu ku qabsan karay maadaama uu ninka hebel uu soo arkay wax soo sameeyay uu ka aamin baxo wixii la gudboona marka uu qaban karay صح waxyaalo badan oo waxa jiri karo waxa sababay dabcan qofka in uu hadafkiisa ama hamiga uu doonayo in uu si dhaqso ah gaaro qadka kala kamid ah dhalinyaro aad yani maanta aad istaqaanaan ama aad isku level tihiin oo waxa laga yaabaa in uu iPhone ama inuu nolol been ah uu soo sawiro ilaan sawirka waxa waaye waa 1 second of a whole month laga yaabaa in sawir been ah soo keeno labis been ah ama telefoon been ah ama mail been ah oo lacag been ah soo keeno khadkii uu soo dhigo qof dadka kale marka maxaa kala dhacayo qofkan noloshana ku nool yahay marka qof kale ay kalifayso marka inuu isku dayo in uu dedejiyo horumarka uu dedejiyo inuu guusho uu dedejiyo markii degdeg ay ku imaan weysana niyad jab iyo inuu ku imaan waxaa jirta oranayso oo English and don't show me what you did show me how you did inta badan dadka guulaha gaaray waa dhifi naadir inaad aragto qof wax xaqiijiyay waxaas sida dhabta u xaqiijiyay oo ka sheekeynaya kaliya wuxuu u gaaray wax markaas uu xaalad marka uu ku sugan yahay ayuu ka sheekeynaya laakiin kama sheekeynaya waa dhifi naadir oo kula kama sheekeynaya waxani sidoo ku gaaray waqti ku qaadatay
wuxuu kala kulmay yani like it's kind of like private ka dhigtaa inta uu qarsadaa jabkii uu soo maray uu qarsadaa xaalad adag uu soo maray uu qarsadaa yani qofku markuu wax sameeynayo wuxuu la kulmaa caqabad badan mid nafsi ha noqoto mid baaadi iyo deegaan ku dhiman noqoto waxa badan la kulmi karaa qofku waxa la soo qarin laakiin wixii wanaagsanaa wixii fuudaa ama wixii u fuuday waxa inuu gaaro ayuu ka sheekeen qofku waxa loo sheegaa markuu xasabiranayaa wadada raqiiska uu sabiranaya qofkan wuxuu qarinayaa wadada dheereed oo xanuunka iyo jabka iska lahayd ayuu qarinayaa marka waa dhifi naadir dadku wax sheegayo ma sheegaan waxan yani wadada u mareen generation ku jiro hadda odayadeena nimanka hantida leh markii laga sheekeeyo dabcan ay kaaga sheekeen wadinta ay kaaga sheekeen waxa lagu oranayaa nin muqdisho ka yimid isagoo dacsiisa bas xiran in wadanka soo galay toban sano 20 sano ay qaatay inuu hantida maanta u awriyo marka waxa uu muuqata yani odayaasheen hore in dabcan mana dalbaneen oo waxa laga yaabaa in lagu kala duwan yahay khaasatan lagu kala duwan yahay laakiin ay nala dulqaad badnaayeen oo iimaankooda ay lahaayeen waxaa lagu dhahaa qof waxaa jiro barfuum wareejin jiray sanadkii lagu dulqaatay dabakaayo dhistay oo dulqaatay dukaan dhistay oo dulqaatay dukaan weyn dhistay oo dulqaatay shopping center dhistay 20 sano 30 sano ay qaadatay marka generationka hore waa loo gaaday waa xaqiiq khadmi jirin in istaqaano laakiin generationka cusub waxa laga yaabaa in qof dabcan waalidkiisu hanti leeyahay in aad isku daba beegto oo aad tartamaysid waxa waa ila dambeena ku jirtaa taas marka qaarkood marka waxaa dhihi karaa caqabada ugu weyn waa dulqaad yari ayadana haysataan dulqaad anigaan taasi marka dulqaadkaasi waxaan xal u arkaa qofka intuusan horta qofku wax buu doonaa inuu xaqiijiyo ama qofku buu ku daydaa wadada guulaha loo gaaraa waxay tahay wax aad qabanayso horta muxuu yahay inaad ogaataa waxaasi qof xaqiijiyey waa inaad heshaa marka hore iyo qof ku guuleysay ama ku guul dareysa ka wada qof ku guuleysay iyo qof ku guul dareysa inaad heshaa waxna aad qabanayso ama wax kale u dhigmo waxaas u dhow inaad ka soo meel ka soo qaadan karto ka shidaal qaadan karto inaad heshaa marka idan aan dhammaan waxaan ku talin lahaa qaab noocan way fiican tahay qofku inaad internetka ka daawato waxa xaqiijinayso dadka hadlaayo dadka waramayo laakiin waxa ka sii fiican adigoo midaas haysto inaad qof bey'adaada ama halka aad ku nooshahay ama la xiriiri karto inaad daraasato horta laana qofku markuu dad wax soo gudbinayo qaab public waa inta badan hayliis wax dida waxyaalo badan oo qariya waxyaalo badan oo u sheega marka inaad qofka si private u tagto nin hawdii arrinkan sidaad ku xaqiijisay walaa sheekooyin badan oo yani xilligaas aadan malayn karin ayuu kula wadaagayaa taasna ka dhigayso waxa qabanayso waa inuu wax sax yahay waa in waxani waa shay waqti u baahan waana shay gaaristiisa u baahan tahay wadada in loo maro ha noqoto 10 sano ha noqoto 20 sano adigana waxa laga baahan yahay samee si aad waxaas u gaarto lana qof marka si private la kulanto wax ku sheegay imad si public u dhigaysanayso waa different way kala tahay wixii marka qofku ku ag fadhiyo waa dareemi kartaa xanuunka uu soo maray jabka uu soo maray shakhsi ahaan markuu kala sheekeenayo waa dareemi kartaa inta la ka arki lahayd waxaa kale dabcan qofka hadafkiisa u xirnaa dad qaarkood waxaa laga yaabaa in haddii uu waxbarashada rabto inaad dhacabto waxaa la rabaa inaad ogaatid inta sano ay qaadato ani waxaa rabaa inaan PhD sameeyo digriga 3 sano iga baahan yahay 3 sano iga baahan yahay intaas adina ku xisaabtanto waqtiga oo wixii dhan aadan malaysanin wax fudud oo fudud oo kale takana aad ogaatid yani dadaalka loo baahan yahay inuu jiro waxaa laga yaabaa hadafyada qaarkood in aysan waqti badan u baahnayn dabcan qofka duuba inuu buugaag akhristo kale ama inuu quraanka xifdiyo waxaa laga yaabaa inuu maalintii saacad ama 2 saac ku fahmo iyo waxaa jira hadafyo 2 saacadood 3 saacadood 4 saacadood waxyaalo ka badan u baahan marka qofka wuxuu rabo inuu xaqiijiyo inuu ogaado horta wixii dadaalka looga baahan yahay Allah imaa dadaalka looga baahan yahayna in ku caawiyo oo haddii dabcan aad rabto in aad wax barato markii maadalaad kuwa aad kaanto aadan iska cararin oo dhin ani waxaa waxbarashadu iga adkaato iska daa oo mar walba marka ku xiran tahay qofku wuxuu rabo inuu xaqiijiyo intuu uu rabo inuu meel gaaro intuu u baahi qabo qofku wuxuu baahi waxaa kaloo dhici kara waxaa lagu jirtaa leesinimo jilkeenan dulqaad la'aan iyo leesinimo isku darsan aad u qaabtiran waxaa ka sii daran dhalinyarada in badan magaalada ayaa dareensanayn waqtiga ku jiraan waxaa laga yaabaa ninka facaaga uu qabanayo oo meeshii jooga oo laga ku liibaado ku guursaday naas ku samaystay
دقيقة قلبيسو دقيقة قلبيسو إلى صحيفكيسو بدأ يجيب سو كان تابع ولا يمشي وخلاص من صح دينك عنده فيلم مع المولود محمد قفصنا ونكو iska dhaadhiciyo بدأ قفنا وشخص بأنا شخص قف مسلم بيدرا وسو حكي من وش يسوي سو سو جالس بدنا لك الدورين اوكي تاسم المش تاسم horta dulqaad la'aantani waxyaalo badan ka dhashay natiijooyin badan ka dhashay natiijooyinkaas u badan yihiin kuwa xun hadda maanta furitaanka uu batay in isfurana caqabada u horeysa xitaa dulqaad ma isku lahaa labada qof guri wada joogto waxaa laga yaabaa si fudud isku guursadeen ama si fudud isku heleen ama si fudud isku shaqaansadeen kadibna ay is guursadeen sagarade marka markay guriga isku imaadaan waxa nolosha isbedelaysaa waxyaalo badan imaanayo marka qofkan u dulqaadan kartaa waa markii qofkan noloshiisa wax uu yahay dabeecad dhabta baranaysa ba u dul qaadan kartaa marka ilaa heer intee leeg ay u dul qaadan kartaa waxa laga qof u dul qaadanay dulqaadku ma xamil waayo qofka ay kala tagaan marka waa mid meesha ku jirto oo caqabadii iyo dulqaad la'aantii dhalisay inuu furitaanka bato tusaale kale hadana ardayda maanta waxaa arkaysaa qof high school ka soo baxaya ama dugsi sare wuxuu rabaa inuu jaamacad aado koos buu dhahayaa kooskana baranaya يعني وابد في نادر بقف ده معد عاد يعني يعني وين صوب يجي تاكو قصبته من فمي كان نقطه اما اسك دم وتهان نقطه طبعا qofka hadafkiisa ku xiran tahay dad qaarkood waxa laga yaabaa in haddii waxbarashada rabto inaad tacabtid waa xaal ra inaad ogaatid inta sano ay qaato yani ani waxaan rabaa inaan PhD sameeyo degreega 3 sano iga baahan yahay masterka 3 sano iga baahan yahay intaas ayna ku xisaabtanto waqtiga oo wixii dhan aadan malaysanin wax fudud oo si fudud loo keeni karo takalna aad ogaatid yani dadaalka loo baahan yahay in la muujiyo waxa laga yaabaa hadafyaha qaarkood in aysan waqti badan u baahnayn dabcan qofka duuro inuu buugaagta akhristo kale ama inuu quraanka xifdiyo waxa laga yaabaa in uu maalintii saacad ama 2 saac ku filan tahay iyo waxa jira hadafyo 2 saacadood 3 saacadood 4 saacadood iyo waxyaalo ka badan u baahan in ay qaad marka qofka wuxuu rabo inuu xaqiijiyo in uu ogaado horta waxay tahay iyo dadaalka looga baahan yahay in lala imaado dadaalka looga baahan yahayna in uu ku caalul adeegi karo oo haddii dabcan aad rabto in aad wax barato markii ay maadalaad kugu adkaato aadan iska cararin oo dhin ani waxa waxbarashadu iga adkaato iska daaya oo mar walba ku celiso marka ku xiran tahay qofku xuro inuu xaqiijiyo iyo intuu uu rabo in uu meel u gaaro ama intuu u baahi qabo intuu qofku wax u baahi qabo صح ودالك موجود waxa kale oo isdhi kara waxa nagu jirta leesinimo jiilkeenan isku darsan marka laba arin oo isku darsanay aad iyo aad u qaabtiran waxaana ka sii daran dhalinyaro in badan oo naga mid ayaan dareensanayn dhibaatada ay ku jiraan waxaa laga yaabaa wax ninka facaaga uu qabanayo oo meeshan jooga oo laga yaabo ku liibaanay ku guursaday ganacsi ku samaystay ku degan qalbigiisu in saaxiibkiis oo isku mid ay yihiin uu soo kaan taagay uu leeyahay meesha wax laga qabto ma lahan haddii ninka aan dhoofin ama meelbaan tagin waxa ma qabsanayo inuu ku iska dhaadhiciyo marka qofka waa qof bay'ada shakhsi qof isgeliya dhigi karaa uu soo xakimay noloshiisa uu soo xirxiray macnaha isagoo chance badan la gudboonay inuu qabto taas way nagu jirtaa sidoo horta dulqaad la'aantani waxyaalo badan ka dhashay natiijooyin badan ka dhashay natiijooyinkaas u badan yihiin kuwa xun hadda maanta furitaanka uu batay in isfurana caqabada u horeysa xitaa dulqaad ma isku lahaa labada qof guri wada joogto waxaa laga yaabaa si fudud isku guursadeen ama si fudud isku heleen ama si fudud isku shaqaansadeen kadibna ay is guursadeen sagarade marka markay guriga isku imaadaan waxa nolosha isbedelaysaa waxyaalo badan imaanayo marka qofkan u dul qaadan kartaa waa markii qofkan noloshiisa wax uu yahay dabeecad dhabta baranaysa ba u dul qaadan kartaa marka ilaa heer intee leeg ay u dul qaadan kartaa waxa laga qof u dul qaadanay dulqaadku ma xamil waayo qofka ay kala tagaan marka waa mid meesha ku jirto oo caqabadii iyo dulqaad la'aantii dhalisay inuu furitaanka bato tusaale kale hadana ardayda maanta waxaa arkaysaa qof high school ka soo baxaya ama dugsi sare wuxuu rabaa inuu jaamacad aado koos buu dhahayaa kooskana baranaya يعني وابد في نادر بقف ده معد عاد يعني وين صوب يجي تاكو قصبته من فمي كان نقطه اما اسك دم وتهان نقطه و اركاي قفا هو برانيا عافماد تصالو كله عافمادku dhib badan yahay wax aqris badan oo ka baahan yahay xisaab badan oo ka baahan yahay atinaas kana class ka tagto ka baahan yahay qofkii dulqaadka ma laha marka waargisa markuu 2 sano wada caafimaadkii uu ka boodi kooska uu aado shortka waxa ka fudud aado yaa weakness 2 sano uu qasaariyo dhaqaalaha uu qasaariyo ما وقت إنه قصير وقال سنة وقت جوا حدنا سيد وحليه
كوسن كلو ديارنا إنه هو يقول يسمى أما يروح عاطل هذا جماعة دم باب كذا سوحره ما قدرت يا سؤالك على عدم سؤال صدحات أفضل نرى حركة يعني أقرنا عليه وهو ودن سوافريكا وهو تجي إنه كشخصته ودن سوافريكا وهو كأمين سنة قوي سنة كأوتك حالتك الله كلها يكون وصال عفتي هذا قتل آدي قتل ممكن أيضا حالات بيصيرون وممكن إيمان أي وحكوا كأمين سنة لأن قف كوني بالخات كجرا يعني وحير القوان وحورا كأنه عاد مسفوت كسمة إنه ما تمتع ناس خير مرة إنه يعني دت كيس كصوت مرة يعني وصورنا أكيد إنه صوروا كوحدة يا قف كذا وصلا وانا مش ممكن إنه وصلا هذا صلا وانا ما فائدة بينا ما دخلوا ولا ما صلا وانا بكوز قف بالخات كشكلنا ما وقعوا أما قف يعني هذا في بحي معهم صوروا في كل بحي صوروا في العجل هو كسمة تاسم مركو عقابين كل شيء وحلاس لها حكينا يا تلقى أنت إيو يعني يرد منها بعد أوكي منها حكينا دينته الله يغفر عليك الله يغفر عليك قفنا دينك لقيا واجبات كستوس بدنيا لها كعب سنة صح حاول يا سكينة قلب سكينة إيمان بجنان أنا أقول من صحف كده مرة أنا هذا تقدر هينا وحياة بدن أو أكثر يلا مركز كم هالبني كتاب ودي كتاب وقبل كتاب اللي ما أنا ودي اسمها الموت باش كسكرتها تلقي مركز حسني كرا تعال من يلا حياة أدبر الوسي هذا لا فلا